anigu waxaan ballan qaaday inaan raalayo ciidamada gabadha lagu eedeeyeyna baaritaan lagu samaynayo allaale dadaal ahin ka geysan karana inaan ku bixiyo sidii gabadha loo heli lahaa weliba waxaan ku idhi anigu maanta idinlama macaamilayo sarkaal madaxtooye ka tirsan keliya waxaan idinla macaamilayaa qof qoyskiina oo kale ah. marka sidaad adiguba sheegtay gurigaaga ayay kugu yimaadeen oo aad ku kulanteen. markii aad guriga ku kulanteen hooye amran waxay sheegtay inay filaysay inaad gabadhii tusayso oo aad og tahay meesha ay joogto laakiin waxay tiri waa markii labaad waaye waa markii labaad waayahay hore intaasaan ku kala tagnay teleefanadiina waxaan la wadaagay hay-adaha amnigaan la wadaagay si loo dabagalo 3 telefoon oo kolley laga heli lahaa cadeymaha ku saabsan gabadha waayo mid kamida waxaa iska lahayd gabar lasoo baxsatay gabdhaha lixda ah oo gabadheeda ku jirto oo markii dambe dib loo helay magaalada gudaheeda laga helay markii la wareystay oo idaacadda qaranka ay wareysatayna ka fogeysay laakiin xogta ay hooye amran isastay iyo wax ay gabadha idaacadda ka sheegtay way kala duwanaayeen. waa tahay cabdi nuur waan fahmay. markaas si ay warku u caddaado marnaba ka cabdi nuur ahaan uma aad ballan qaadin qoyska inaad gabadhoodii tusi doonto mase jirtaa hooyadu arrinkan ay sheegtay ay tiri cabdi nuur baa igu yidhi diyaaradda qatar airways bay raacday salaasadii waxaanan soo ogaaday salaasada inaanay qatar airways ka bixin muqdisho. saddexdaa qodob waxba kama jiraan miyaa markaas? maya qatar airways iyo waxaa idaacado kalaa qoray aniga kumaana bixin. aniga waxaan ku yidhi gabadhaadii waa la helay waxayna ku jirtaa airboortka maxay ahayd iyo xarunta xalane waxaana la wareegtay safaaradda denmark waxaana rajaynaynaa maxay ahayday inaan ama gabadhaada kula haleeshiino ama aan garoonka kugu geyno. waxaan helay telefonka qolada qunsuliyadda ka shaqeeya denmark waxay ugu dhaheen arrintan waa arrin xasaasi ah safiirka keliya kaala hadli kara. gabadhii safiirada ayadaan wacay waxay igu tiri cabdinuur xamaraa joogaa waxaanan la joogaa gabadhii waxaanan rabaa inaan dheefiyo. waxaan ku yidhi gabadhaas waa gabar anka oo da-deeda 17 iyo waalidkeed ku sheegeen xaqna uma lihidiin gabar da-daa jirta inaad kaxaysataan. waxay igu tiri gabadhaas 17 jir ma aha waa 17 jir waana qaangaar caqli iyo garasho ku filanna way leedahay denmarkna way ku dhalatay sharcigeedana waan wadaa wax dambi ana dalkiina kama gelin waalidkeedii ayadana inaad isu geysaan shaqadiina ma aha. marka haddii dembi aad ku haysataan gabadhaana kusoo dacweeya haddii aada ku haysanna gabadhaan anigu galabtaan diyaaradda kenya airways saaraya waxaanan u kaxaynayaa meeshii iyo wadankii markii hore 2 sano ka hor laga keeno. marka adigu goorma ayaad ogaatay in ay gabadhu xalane ay ku hayso safiirka denmark u fadhiya kenya? sidee bay se gabadhu xalane u gaadhay? gabadhan markay xarunta kasoo fakatay waxaa gacanta ku dhigay xarumaha arrimaha xuquuqul insaanka iyo maxay ahayd haweenka iyo ilmaha baxsadka ah gacanta ku dhiga. ayagii baa meesha la galay ayagii waa dhowr bilood meesha ku hayay 2 bilood iyo xoogaa reerkan meelaha ay ka raadinayaan iyo ciidanka lagu wareegeysanayo waxbaba kama jirinba sababtoo ah gabadhan aniga safiirkii markaan la hadlay waxay igu tiri 2 bilood iyo barkii lasoo dhaafay gabadhan annagaa gacanta ku haynay. marka waxa aad ii sheegaysaa in hay-ado u dooda xuquuqda aadanaha oo jooga magaalada muqdisho ay gabadha u tagtay kadibna ay xerada xalana geeyeen ma saas bay wax u dhaceen? markay soo fakatayba meeshaasaa la geeyey xogta aan hadda helayno safiirka denmark fadhigeeda nairobi yahay iyo soomaaliyana ku magacaabanna ay ii xaqiijisay. marka iminka amran gabadhii ay dhashay xaggee ayay joogtaa cabdinuurow? waxaan la xiriiray qolada immigrationka waxay ugu dhaheen gabadhii waxaa la keenay garoonka markii la keenayna waxaa hor istaagay booliiska soomaaliyeed. janaan zakiya waxay ku andacootay in gabadhaas ay tahay gabar da-yar dalkana aan laga saari karin ayadoo waalidkeed la hadlin laakiin safiirkii denmark waxay hor dhigtay warqadihii dhalashada ee gabadha oo muujinaysa inay sanadkii 2000 iyo maxay ahayd koodii dhalatay 18 jir iyo xoogaa iyo bilo ay jirto. waxayna u sheegtay muwaadinkan waa muwaadin denmark u dhashay oo dalkeeda u laabanaya oo wadankan jujuub lagu keenay oo dhaqan celin loo keenay oo hadda dadkeedii iyo waalidkeed baxsadka ah. taliyuhuna waxay ka codsatay safiirka inay gabadha gooni u wareysato. gabadhii markay wareysatana waxay ka dhaga adeegtay in hooyadeed lala haleeshiiyo in waalidkeed la tuso in xitaa reerka iyo gabadha inta la wada haleeshiiyo la heshiisiiyo ayadoo heshiisa communitigeeda looga qaaday baxdo. laakiin safiirkii waxay ka adkaysatay gabadhaan sharci ka hor istaagaya gabar qaangaar ah oo da-deedu dhamaystirmatay oo dalkii ay ku dhalatay u noqonaysa inaysa dowladda soomaaliya u oolin dembi hadda lagu hor istaagana oo looga celiyo safarkan inaysan jirin. markaas waaye marka aan maxay ahayday aan reerka u sheegaya gabadhii in lala tegey maanta duurkiina ay xamar ka dhooftay caawa habeennimadii 2dana ilaa 3dana inay tegayso maxay ahayd Copenhagen.